Maanta waxaan ka hadlaynaa sida QR code loogu dhex sameeyo Microsoft Office. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Waxaad ku soo dhawaataan janalka Somskills. Maanta waxaan ka hadlaynaa sida QR code loogu dhex sameeyo Microsoft Office. QR code waxa la yiraahdo haddii aydan garanaynin ama aydan hore u maqlin, QR code waa nooc ka mid ah waxa loo yaqaano matrix barcode, waana hab ama nidaam sawir data loogu keediyo. Haddii muuqaalkani aad daawanayso, waxay u badan tahay inaad hore u aragtay sawirka QR code oo u muuqda sidan oo kale. Sidaa darteeda, muuqaalkani kaliya waxaan uga hadlaynaa sida loo sameeyo QR code. Waxaa jira barnaamijyo dhowr ah oo ku sameynaya QR code-ka. Hase yeeshee muuqaalkani kaliya waxaan ku sharxi doonaa sida Microsoft Office loogu dhex sameeyo, gaar ahaan MS Word. Sidoo kale PowerPoint iyo Excel ayagana waad ku dhex samaysan kartaa adigoo ka tusaale qaadanaya nidaamka MS Word loogu dhex sameeyo. Office-ka aan adeegsanayo waa Professional Plus version-kiisa 2021. Haddii aad adeegsanayso versionadii hore sida 2016, sidoo kale sharaxaadda muuqaalkani waad ka tusaale qaadan kartaa. Marka si aad u samaysato QR code, marka hore waxaad soo furanaysaa MS Word. Dukumenti cusub ayaad abuuranaysaa ama mid hore kugu samaysnaa ayaad soo kacsanaysaa. Kadib markaad intaas samayso, waxaad u baahanaysaa wax la yiraahdo add-in oo kuu sameynaya QR code-ka. Sidaa darteeda, marka hore waxaad ku shubanaysaa add-in-ka QR code-ka sameynaya. Si aad ugu shubato, marka hore iska xaqiiji kombiyuutarkaaga inuu internet kugu xiran yahay. Kadib waxaad tagaysaa qaybta menu kore oo ay ku qoran tahay insert. Kadib waxaad ka dooranaysaa oo aad klik ku siinaysaa get add-ins. Waxaa kuu soo kacaya panel yar oo aad add-in-ka aad rabto uga shubanayso. Add-in-ka aan rabno waa add-in QR code-ka sameeya. Sidaa darteeda, qaybta search-ga waxaan ku qoraynaa QR code. Kadibna waxaad leedahay enter. Enter markaad dhahdo, waxaad arkaysaa inuu kuu soo saarayo add-ins dhowr ah oo dhammaan u muuqda in ay QR code sameeyaan. Hase yeeshee, anaga waxaan ku shubanaynaa midka ugu rate-ka fiican oo ah midkan ay ku qoran tahay QR for Office. Marka si aad ugu shubato, waxaad kaliya taabanaysaa oo aad klik ku siinaysaa batoonkani add ay ku qoran tahay. Kadib waxaa kuu soo baxaya message-kan yar. Kadibna waxaad leedahay continue. Continue markaad dhahdo, waxaa geeska midig kaaga soo baxaya add-in-kii aad ku shubatay. Marka saad u jeedo, add-in-kani wuxuu ka kooban yahay 3 qaybood. Qaybta koowaad oo ah halkii aad daatada ama qoraalka aad ka gelin lahayd. Qaybta labaad oo ah options waa halkii aad ka dooran lahayd kalarka iyo cabirka uu QR code-ka yeelanayo. Qaybta saddexaadna waa preview-ga QR code-ka ama halkii aad ka arki lahayd QR code-kaaga sida uu muuqanayo. Marka si aad data u geliso QR code-ka, waxaad tagaysaa qaybta koowaad. Halkan oo HTTP ay ku qoran tahay, waxaad ka dooranaysaa custom. Kadibna godkani eberka ah ayaad ku qoraysaa daatada aad rabto inaad QR code-ka ku keediso. Tusaale ahaan waxaan ku qorayaa Somskills. Haddii aad rabto inaad QR code-ka cabirkiisa weynayso ama yarayso, waxaad wax ka beddelaysaa qaybtan size ay ku qoran tahay. Haddii aad bidix u badiso, waxay ka dhigan tahay inaad yaraynayso. Haddii midig aad u badisana, waxay ka dhigan tahay inaad weynaynayso. Tusaale ahaan, si aan xoogaa u weynayno, waxaan u badinayaa dhanka midig. Kadibna saad u jeedo cabirkiisa wuu weynaanayaa. Kadib markaad intaas samayso, waxaad leedahay oo aad klik ku siinaysaa batoonka hoos yaala oo insert ay ku qoran tahay. Insert markaad tiraahdo, QR code-ka wuxuu kuu soo dhex dhigmayaa dukumentiga kuu furan. Kadib haddaad rabto, dukumentiga dhexdiisa ayaad ku dhex isticmaalaysaa ama sawir ahaan ayaad u save garaysanaysaa. Haddaad rabto inaad sawir ahaan u save garaysato, QR code-ka ayaad right click ku siinaysaa. Kadibna options-ka kuu soo baxaya waxaad ka dooranaysaa save as picture. Kadibna meesha aad rabto inaad dhigato ayaad dooranaysaa. Kadibna waxaad leedahay save.
kadibna sawir ahaan ayuu kugu save gareynayaa